kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu idinka diyaarinay isbarbardhigga ciidamada Ruushka iyo kuwa Britain. sidoo kale barnaamijkan waxaa qayb ka noqon doona guud ahaan ciidamada NATO iyo kuwa Ruushka. mar kale ku soo dhawaada saaxiibayaal. ciidamada dhulka ee Britain ayaa si baaxad weyn looga adkaan karaa haddii ay Ruushka kula dagaalamaan bariga Yurub, sida ku xusan warbixin ay soo saareen khubaro ka hadasha arrimaha difaaca. cilmi baarayaal ka tirsan macadka Royal United Service Institute ee loo soo gaabiyo Ruusi waxa ay ogaadeen in ciidamada Britain iyo sidoo kale xulafadooda NATO ay haysato caqabad adag oo ah in hubka iyo madaafiicdu ay aad ugu yar yihiin. sida ay sheegeen khubaradu, waxaa suurtagal ah in askarta dhanka dhulka aysan iska difaaci karin. wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay in NATO ay si dhow ugula shaqaynayso ayna si wanaagsan u qalabaynayso si hoggaanka ay u qabtaan. baaritaanka la sameeyay waxa uu soo baxay ka hor kulanka hogaamiyaasha NATO ee London ka dhacay bishii November ee sanadii tagay ee 2019, iyagoo xusayay sanad guuradii 70aad ee ka soo wareegatay aasaaskii gaashaanbuurta NATO. Britain iyo dalal kale oo ka tirsan NATO waxa ay sameysteen ciidamo ka howlgala bariga Yurub si ay uga hortagaan halista ka iman karta dhanka Moscow kadib markii ay goosatay Crimea sanadii 2014. qiyaasii 800 askari oo British ah ayaa hadda ku sugan dalka Estonia. markii ugu horeysay halkaasi ay gaareen waxay ahayd sanadii 2017. laakiin cilmi baarista macadka Ruusi waxaa lagu ogaaday in ciidamada qalabka sida ee UK aysan haysan hubka awood leh marka la barbar dhigo militariga Ruushka. waxaa warbixinta lagu falaqeeyay awoodda militari waxa ay noqon karto haddii ay dhacdo arrin lagu tilmaami karo dagaal culus oo faraha la isaga gubto, kaasi oo dhexmara Ruushka iyo NATO, halkaas oo ay Britain horey u ballan qaaday in ay geynayso hub dagaal oo aad u culus. xilligan waxaa jiro halis ah in UK aysan dagaal dheer geli karin, kaasi oo ay suurtagal tahay inuu hareeyo yaraynta xiisadda marka ay xamaasadu gaarto halis dhanka awoodda ah ayaa lagu qoray warbixinta. waxaa intaa lagu daray Britain si baaxad weyn ayaa loogu badan yahay, loogana tayo dheer yahay, taasi oo sababi karta in si fudud looga adkaado askarta UK. madaafiicda Ruushka iyo gantaalada bateriga ku xiran waxaa horey loo cadeeyay in ay awood leeyihiin. waxa ay daqiiqado gudahood ku baabi'iyeen 2 guuto oo ka tirsan ciidamada Ukraine sanadii 2014. ciidamada UK iyo dalalka kale ee NATO waxaa aad u yar madaafiicda dhulka laga tuuro, rasaasta iyo gaadiidka lagu qaado. warbixintu waxa ay sheegtay in cusboonaysiinta iyo casriyeynta gantaalada dhulka laga gano ee Britain ay tahay arrin degdeg ah oo u baahan in mudnaan gaar ah la siiyo. taasi iyadoo ka jawaabaysa wasaaradda difaaca ee Britain waxa ay tiri UK kaligeed ma ahan, waxa weheliyo xulafada NATO oo si dhow ugu wada shaqaynayo dhanka hawada, badda, dhulka, nuclearka iyo internetka si looga hortago halista loogana jawaabo duulaanka. waxaa intaa ay ku dartay, maadaama aanu nahay dalka bixiya dhaqaalaha ugu badan NATO ee Yurub, ciidamada UK waa kuwa qalabaysan oo hogaamin kara ka hortagga halista iyo xaqiijinta amniga iyo badqabka shacabka Britain ee dalka iyo dibaddaba. waxaa halkaasi inooga eg barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ka diyaarin Ruushka iyo NATO. tan intii aynu kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah, waxaynu idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.